بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. درسي أنه حكب الله يا بلوغ سورة يونس. سورة يونس نوع سورة مكية أو مكة كسو دكتي وهرينت وحكاها الليسا رسالة يا رسولك صلى الله عليه وسلم يعدين لعدينا أيو أرن كاني أو صدرد رسولك inay tahay sunnada ilaahay ee ummadihii horena saasoo kale loogu soo diri jiray. kadib suuradu waxay ka hadlaysaa mowqifka ay gaaladu ka istaageen risaalada iyo quraanka iyo sida ay u diideen. kadib suuradu waxay ka hadli doontaa dadka oo laga tacriifiyo ama la baro sifaadka ilaahay, aasaarta ama qudradiisa muuqaaladeedana yani koonkan laga tusiyo. kadib suuradu waxay ka hadlaysaa qisas bacd al-anbiya, waxayna sheegi doontaa qisadii nabi nuux iyo qisadii nabi muuse iyo qisadii nabi yuunus. qisooyinkaasi ayay suuradu tilmaami doontaa si loo cadeeyo ummaduhu markii ay jidka ilaahay ka leexdaan meesha ay ku dambeeyaan. waxay ku soo gabagaboobaysaa suuradu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la amraayo inuu ku toosnaado ama uu qabsado shariicada kuna sabro waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee uu kala kulmaayo ku sugnaanshaha uu shariicadaas uu ku sugan yahay. suuradu waxa magacan loogu bixiyay suuratu Yunus qisada lagu sheegay dhexdeeda oo nabi Yunus taas oo ah يعني أمد إلهي وعذاب كسو دجيي وعذاب كدنا وكعلي مجرته إلا قلدان قوم يونس لإله ذا مؤويه مركا أرنتاس أوانا يعبر كسو درادر أيام مقع سورة دلوسي سورة يونس لو بحيي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلهي مقعيسا أيام تفسير كسورة كب الله بيناه. اللي الرحمن نحريس تقول لها، اللي الرحيم نحريس تقارنات لها. ألف لام را. الله أعلم بمراده. إلهي بأوجه أولجي ألف كاسي اللام كاسي رعداسي. تلك تاس آيات الكتاب كتابك أيديسة أي أعطي الحكيمي كتابك حكمة بدنا محكم كها سغنا سورة دني يعني وسورة كمدة كتابك قرآن كأه أيديسة محكم كأيهين وسورة كمدة. تلك اسم شراس وبعيدة دنا وحلوة عبري سلو موجيو يعني منزلة iyo sharafta quraanka uu leeyahay saasa waxa loo yiri tilka taas oo laakiin macnaheedu uu yahay ay haadii tan oo suuradan ah suuratu Yunus aan ka hadlayno aayatul kitaabi ay aayatun min al-kitaabi wa aayado kitaabka kamid ah laana kitaabku wuxuu ka kooban yahay suurka quraanka oo la isku dardaray suurad walbana aayado ayay ka kooban tahay. suuradan suuratu Yunus ahna kitaabkaas quraanka ah ee 114 ka kooban يعني آيات كمد أي سورة دني أهاتي. تلك تاسي أو سورة دان آيات الكتاب أي آيات من الكتاب آيات كتاب كمد أي أهاتي. الحكيمي كتاب كحكمة دبضنا كتاب كمحكم كها سجنا كتاب أصلا شك كجرين إنه إلهي أكتي سكيمت وحول ب ماشي وها بونت كتل الماماي قرآنكو هدو وعد الشيء جاي نسلو وفي عن أي وعد وشيء جاي هدي وشيء جاي نار sifooyinka naartu ay lahayd oo faahfaahsan hadii uu janno sheegayo haduu xalaal sheegayo haduu xaraam sheegayo marka waa kitaab sugan oo aan iska hor imaanaynin oo hal dhinac wada socda. taas waxay ku tusaysaa wixii Ilaahay uu soo dajiyay inuu yahay kitaabku. hadii uu Ilaahay soo dajin lahayn iska hor imaad badan ayaa kitaabka lagu dhaxarki lahaa. afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. yani quraanka min isku tadabburin hadii Ilaahay qeyrkii agtiis oo ka aan laha iska hor imaansho iyo hadal aan isku dhinac u soconin ayaa ka imaan laha. laakiin kitaabku maadaama Ilaahay agtiis uu ka yimid waa kitaab muhkam ah oo sugan oo aan iskhilaafaynin oo isku dhinac u socda. akana lin-naasi ajaban ana waxayna ila rajul minhum. aayadan waxay tilmaamaysaa nimankii la jiray kufaar Quraysh yaa waxay diideen nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu rasuul yahay oo waxay yiraahdeen ويقول الذين كفروا لست مرسلا waxay dheen cid ku soo dirtay male waad iska sheeganaysaa ma ogiye. maxay ku diidayaan marka? waxay leeyihiin risaaladani waa ay ka weyn tahay ruux bini aadam in lagu soo dejiyo
malag baa lagu soo dejin karaa marka arintaas ayada si looga celiyo ya ilaahay wuxuu leeyahay akaana linnaasi dadka ma waxa u ahaaday ajaban la yaab ana waxayna inaan waxyoonay ila rajulin xaqi oo minhum ayaga kamid ah waxay la yaaban yihiin waxyiga ilaahay ruux ayaga kamid ah oo sidoo kale insaan oo ah bini aadam ah in ilaahay uu waxyi ku soo dejiyo mataasay la yaaban yihiin haataasay la yaaban yihiin waxay leeyihiin see ruux bini aadam oo naqaano goortuu dhashay iyo meeshuu ku dhashay iyo hooyadii iyo aabihii iyo koritaankiisii hore oo hebel caadi aan u naqaano inuu dhaxdana la intuu ka soo baxo uu yiraahdo aniga ilaahay toos waxyi igu soo dejiyo yani samadii ayaa ii furantay taasay ku dhici kartaa malag ma la soo dejiyo waxa marka wax la yaabaa yani hadii ayagu ay u diidan yihiin risaalada in nabi loo dhiibo oo ilayhi risaalada ayaa ka weyn nabi iyo bini aadam in loo dhiibo waxay dhanka kale caabudayaan dhagax ayagu ay soo qoreen geed ayagu ay soo gooyeen iyo intay meel qotomiyeen ya waxay dhahan kan ayaa ilaahay noo ah ilaahaygi waahidka ah ee khaaliq ah cadamadiisu ay weeyeen dhagax ayagu ay qoreen bay u ogol yihiin in ilaahay ka dhigtaan rasuul oo bini aadam ah oo hadlaayo oo sharaf lana risaalo loo soo dhiibay oo loo waxyooday ya waxay leeyihiin say ku dhici kartaa risaaladu way ka weyn tahay wax bini aadam loo dhiibi karo marka arintaasi ayaa laga celinaya marka akaana ma waxa ahaaday linnaasi dadka ajaban la yaab waxa ku noqday an awxayna inaan u waxyoonay ila rajulin oo minhum ayaga kamida inaan waxyi ku soo dejinay miyay la yaaban yihiin oo waxaan waxyi ugu soo dejinay fariinta oo dadka soo gaarsiinayeen ay tahay an anzir an-naasa dadka udig ayaan ku niri yani wadiifada ama shaqada nabiga loo soo diray ya waxay tahay in fariinta ilaahay dadka la soo gaarsiiyo ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ayaa la istaag oo dadka udig ayaa la yiri marka in nin ayaa kamid oo yaqaanaan inta waxyoonay arin aan u soo sheegnay waxaan ugu soo sheegnayna ay tahay an anzir an-naasa dadka udig kuwa yaani ilaahay jidkiisa aan raacsanayn oo nabiga ka hor imaanaya hadhow seena marmarsiyo u yeelanin cadaabka uga dig sidii uu buna yeelay wuxuu ku yiri inni lakum nadhirun bayna yadi cadaabin shadiid inni nadhirun lakum bayna yadi cadaabin shadiid yani waxaan ahay aniga dige ka soo hormaray cadaab shadiid oo irwaadkiisan kari in aan hortii idin wax idin sii sheego ayaan oo imid marka ayaga dantooda laga shaqeynayaan in meeshii khatartayda naartayda looga digay oo rasuulkii uga digi lahaa waxyigii uga digi lahaana u soo sheegnay oo u soo waxin mataasa la yaab leh oo aan ku niri an anzir an-naas dadka u dig dadka kuwii xumaada waa sidaas dhanka kale waxa loo bishaareynayaa inta ogolaatay fariintaas ilaahay inay qaataan wa bashir alladina kuwii u bishaaree aamanu rumeeyeen anna lahum inay leeyihiin qadama sidqin horumar run ah cinda rabbihim rabbigooda agtiisa inay ku leeyihiin u bishaareen muuminiinta waxaad ugu bishaaraysaa waxaa idiin horumaray oo ilaahay agtiisa idiin yaala darajo iyo manzilo sarraysa waxa aad ku hesheen waxay tahay wixii idinku aad hormarsateen oo amal wanaagsan ah marka cidii arintaas samaysana ugu bishaare ilaahay agtiisa khayr inuu u jiro cidii arintaas ayada diidana cadaab inuu ka horeeyo cadaabkaas ay gali doonaan u sheeg marka waa bayna al-khawf wa ar-rajaa qofkii naftiisa wax ku falaayo marka ama naftiisa ka naxaaya waa inuu ogolaado yani bishaaradan oo uu ilaahay ka cabsado oo uu shaqeeyo oo ilaahay darti u socdo ruuxii taas diidana waa loo digay hadhow marmarsiyo ilaahay agtiisa kuma heli doono oo markii la yiraahdo maxaa naartan idin soo galiyso idin ma imaanin qof idin diga waxay dhihi doonaan bala qad jaana nadhirun fakadhabna annaga uu noo yimid laakiin annaga ayaa diidnay mar haday diideen marka marmarsiyo oo ma helayaan ay hadhow ku dhahan annaga wax noolama sheegin hadaan rasuul la soo diri lahayn waxay dhihi lahaayeen lawla arsalta ilayna rasuulan fanattabi'a aayatik maxaad rasuul noogu soo diri weeyay ilaahayow aayadaha ayaan raaci lahayn hadii la soo diray oo hadana ay raaci waayeen hadhow maxay ku hadlaayeen oo maxay dhahayaan rasuulku idin yimid maxay u raaci weeyay markii la dhaho wax ay ku hadlaan male waa inay markaas ay dhahaan waan gafsanayn dib ma loo celinaya oo la yiraahdo maya fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashab as-sa'ir way qirteen dambigooda marmarsiyana male naarta lagu shubo marka rasuulku waxa loo soo diray inuu dhanna ka digo oo xumaatada dadka sameynaya u digo ilaada jooga dhanna uu ka bishaareeyo dadka wanaaga sameynaya inay ilaahay agtiisa wanaag ku leeyihiin inuu u bishaareeyo marka kuwan dambe wa bashir alladina aamanu kuwaas ayaa ilaahay mahadiisa ilaahay nagu daray oo mu'miniin ayaa nahay ilaahay baan rumaysanahay quraankaan rumaysanahay isa soo bixinta ayaan rumaysanahay wax kasta oo ahayd in la rumeeyo ayaan rumaynay marka kuwa sidaas yeelay wa bashir ugu bishaare alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay wax walba oo loo baahnaa oo rumeeyay leeyahay kuwa rumeeyay waxa ugu bishaaraysaa
أن لهم إن إليهم قدم صدق هرمر ونكسن عند ربهم رب والأكتيسة هرمر ونكسن إلي كلين مال في عن كلين درجة سر إلي كلين وقب بشعره وحبا أهر مر خير أيه هرمر سدين خير كاس أيه هرمر سدين أبال كيسة إلهي أكتيسة كلين ماشي وجينا هنا ومال رنقة أو ونكسن أو في عن أو جنة لي هذا ساء وقب بشعره قال الكافرون قالوا حي هذين إن هذا كان مؤوسا أهان كان أو مركا أولجيدان النبي صلى الله عليه وسلم لساحر أيوة هذا يدهن كان مبين أو سحر كسوعد جاي هذه قراءة الله أخرجوا لي هذا إن هذا لسحر مبين كان يوحوا هذا للسحر سحر أيوة هذا القرآن كأولى جيدا هذه الساحر اللي هذا النبي أولى جيدا وحي هذا إن هذا كان لساحر أيوة هذا الساحر مبين سحر كسوعد جاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان وش جاي هي مبادئ قيمها بدن أولي oo ruuxii rumeeyay macaanidaas markuu dhadhansado wax kale uu san yeelin oo halkaas ay ka dhacday marka dadkii inay kala baxaan ruuxii diintan rumeeyana oo noqdo qof diintan si ay sheegayso ku dhaqma ruuxii diidana inuu ka leexday oo diintii uu garab maray markaas waxa dhacday in qoys ka koobnaa midalan nin iyo xaaskiisi in midalan xaasku ay muslimad noqoto mu'minad inay noqoto oo ninkii marka asna uu gaalimo intuu ku haro وكو عداديو إنay islaamka ka soo noqoto gaalkii ay la ahaato oo ay diideyso markaas waxay raadin ninkani wuxuu saas dadka u yeelayo muxuu ku akhriya dadka wuu sixra ayay dhahan yufarriqu bayna al-mar'i wa zawji qofka iyo xaaskiis ayuu kala saaraya nabi ma kala saaraya oo sixir ma ah xaq uu dadku u cadeynaya cid ilaahay xaqaasi uu waafajiyo marka gaalnimo u noqo ma yeelayso diidmadaas ay diideen waxay u maleeyeen ruuxii in la sixray markaas qaal kaafiruna gaaladu waxay yiraahdeen إن هذا كان أو نبيجة لساحر وساحر مبين سحر كيسون وعدها أي يرادين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أيضا وحكى الله أيام إلهي أود ديسة يقدر ديسة كون كانوا أبوري إن لو دليشدو أو لغفير سوا إن ربكم ربجين الله وإلهي الذي عليه خلق أبوري السماوات والأرض ملك في 6 أيام لحم الموت كو أبوري إلهي جريتانكيس waxa uu daliil ah samada inaga koreysa oo marna aan soo dhacaynin oo markaad kor u fiiriso dayactir bay u baahan tahay iyo meeshan ay ka xumaatay aan la dhahaynin dhulkan aan ku socono ee saan u fidsano intaas oo maalmood intaas oo san hadaad socoto aadan dhameyn karin meel uu ku dhamaado ilaahay ayaa saa u abuuray oo saa u fidiyay marka inna rabbakum rabbigiin wa allahu ilaahi alladhi khalaqa abuuray as-samawati samawaatka iyo wal arda dhulka في 6 أيام لحم الموت كو أبوري إلهي وحو كو أبوري كري كن فيكون أهون أهان لها لكن إلهي إلهي وحو نبرايا تدرجك يدنيه أنا مركا قبصنا إنه إنا نسيت ترتيبا أنو قبصنا أو هل مروحي أين نجيب ولا سينين أو دق الإسكدايو أو الصبره يعني كون كان يسيت تدرج أو ترتيبا أيو كب اللوضي عدي كن نولنا وحانا وسيت ترتيبا إلهي أقول نولاته لكن أرد كانوا إلهي نقول ابتليه الصومالي والصبر كعن لهين oo ruuxi hadii uu meel galo ama ha aato siyaasad ama ha aato ganacsi ama ha aato waxbarasho oo uu rabo muddo kooban in uu dhinac kale uga baxo sidaasi sunnada ilaahay ee koonkaani ma aha hadii qofku wax aan la gaarin soo xilligiisa aan la gaarin uu boobsiyo ma gaaray dhaxda ayuu ku kufaa waqtiisa ayuu iska imaanayeen si tartiib ah in loo socdo ayaa la rabaa oo hadii mesela barnaamij qofku uu galo barnaamijkaas inuu ku sabro oo marba uu qayb ka qabto sida uu u socdo marka dameeshii raba ayaa gaaraya laakiin inuu hal mar wixii inuu ku soo wada helo oo haduu ganacsi uu bilaabo yiraahdo bishan waa inaan taajir ku noqdo hal bil gudaheed taasi yaani sunnada ilaahay ee koonkan ma aha haduu siyaasad galo bil gudaheed inuu yiraahdo waxaan rabaa meesha ugu sarreysnaan uga baxo ayadana sidaas oo kale ma aha umaduhu waxay ku socdaan si tartiib ay waxooda u dhistaan yaani sunnada ilaahay ee koonkan waxay ba tahay tadarrujkaas marka ilaahay subhanahu wa allah samaawaadka iyo dhulka ku abuuray fi 6 ayaamin 6 maalmood lixdaasi maalmood waa 6 maalmood asay agtiisa ilaahay uu yaqaan iyo sida ay tahay 6 maalmood ayuu ku abuuray thumma sawa ala arshi ayuu ku istiwaaday istiwaan yariiqu bijalaali istiwa asaga oo cuntama aayadahan oo kale sida ay yihiin ama u soo arooreen ayaa intii loo rumeeyo ayaa saas looga socdaa intii la dul istaago muran iyo dood lama geliyo maxaa yeelay ilaahay arimaha ku saabsani yaani khalqigiisa lama mid ah laysa kamithlihi shay'un
عقل إدراك بن آدم كنا وصوكه بكرة مؤمن كنا معها ولا يحيطون به علما مركز سيدة آيات أيوة قرآن كتابك إن سيدة هذا اللي دايو سياس أيام نبتقلي بدل سلف الصالح حساس يلي جرين ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله استواء سبع عنتما وكيفية سيدة ويها أين نجرنين أيو إلهي استوذي سيدة إن الله رافع مركز مع دام أفعاش إلهي صفاتك إلهي ذات إلهي أي كدوان تهي أرمها ضدك أرمها أساو كصعب سنة وأرمها كدوان أو يعني لو تصور كرين سيدا مثلا بن آدم وياي أو كذا لو ما تصور كرين واحد والبقى قلبه يقصر دعاء إلهي وأكن الزهن ياي استوى على العرش استواء يليق بجلاله استواء سوى عنتما كان شاء سوى عنتما إلهي سوى يقان كيفية أيو استوذي هل كان الله ضعف مايو يدبر الأمر أمرك أيو معمول إلهي أمرك أيو معمول كون كان معمول كيس إلهي بأسكاله هذي ذلك قارئ أود أي مركز سبيل عيان درادة أي أملايان إن أيو معمول كرام أو سيدا أي دونان أيودي كرام ويكل جوعيان كون كان أيو ما ينسمى سندتكو أيو اللي سميه عليه كون كان سميه أيو معمولاي قولك أسرع يا إسكال إلهي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين عدوا رب إلهي تحلسيا متقين تا إلهي كعبسة أيانا عرفته ونكسر الدنبنا إسكاله مركا يدبر الأمر أمرك أيو إلهي مامولا كون كان مامول كيس إلهي با إسكاله وحو قدري أياء هذا وحو سنقدرين ما هذان عدوا العزية أياء عزيهشا عدوا دليين ويدلو ذا يدبر الأمر أمرك أيو إلهي مامولا ما من شفيع إرقيا مجرو إلا من بعد إذنه مركو إلهي فصح موغيه شفاعة قيامها إلهي با إسكاله قل لله شفاعة جميعا إلهي مركا قفك أولاد دونه إنه كو كراميو يو شفاعة السيا عند اللي شفاعينا وعند مركا رب إلهي أرالي كنغضي أو مؤمن إسلام نما سوقري ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ملائكته وحالي قف إلهي ذلك إياه وما يشفعان شفاعة مركا إلهي بأسكال عد يضن انت اسكال أغاضه ذاتك أنيقا أيا أشفاعي إسان دونا كيلا ليه كرتا مجر تمام من شفيع إرقية مجره إلا من بعد إذن إلهي مركا فصح موغيه ذلكم كي ناس الله إلهي أيها هذا ربكم ربكين فاعبدوه عابدا إلهي واكاس ومعنى ذلكم الله كي ناس بمعنى سماوات كأبوري ونول كأبوري وصلاص وحما ملايا ذلكم كي ناس الله إلهي ربكم ربكين أيها هذا فاعبدوه ربكاس عابدا أفلا تذكرون من يدن وان سمين إليه مرجعكم جميعا هذا أرين كلو إنكر سنين قالوا أيها لقلها الله يا ومركي لدنتو أيها وحي لها ين سنصو بحين دونه الدنيا أنت عم بيكون ونموت ونحيا وان دمنا وان نولنا مع قارن ويدمنا قارن ويدمنا يعني واحدة مول الصبح حنا مله ستة لوجع عليا وحالي إليه إلى الله إلهي حقيسة أي مرجعكم نقصدي إنه يعطي جميعا دمانتين كوي دنبضة إلهي أكتيس أي اللي سجود تجدونا إليه إلى الله إلهي حقيسة أي مرجعكم لا بشدي إنه يعطي جميعا دمانتين وعد الله إلهي يبوه سأيون أرنكاس هذا وإلهي أبلغ هذا حقا أو صغا وأرين إلهي أبلغ هذا إنه إلهي يبدأ بالله الخلق أبوريستا هذا أين جوجنا حل أين جرين أيها جرته إلهي بقى صواب بالله ما يكفر صدق أوجه ريسين ماله إنه إلهي يبدأ الخلق أبوريستا أيوب بالله ثم يعيده سوء علم ليجزي الذين سوء علم يما أنت قيامة إن ذاك دب له سوء علياي وحلوه تلاقي ليجزي إلهي إنه أبال مريم الذين آمنوا كلهم وعملوا الصالحات عملوا ناكسن سميين بالقسط سعدالة إلهي إنه كعب المريم لأن الروح الدنيا كسو عباديسي أو صوت صبرين أو تكاليف عباده إلهي ضاعة إلهي أو لغو صبره حماتنا أو الإسكدة أو لغو صبره نفتي وحيابة أي جعشها إلهي درتي اللوغة عليهم أرمها صورنا روحي سوى سميين عدالة وحيتها إن مال في عن لقيهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لأن الروح عمل كيس إن انتو سوى شقيستو مال الله لقوا إلهي يعني أرنتي سماها إلهي أدوميه سما الظلميه ليجزي إلهي إنه أبال مريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلهم يعملوا ونكسن سميه بالقسط عدالة إنه كأبال مريم والذين كفروا كوا قالوا بينا لهم وحيليهم شراب عبتان ومن حميم بيكر الأه يعني عدالة إلهي وحيتها روحي عمل ونكسن صوص ما يستينم ما يلفي عن إلا الجيو روحي قالوا بي وأدون كان مركز للجوج أمرك إلهي قادم واينا الدنيا السوء دوني بها كجوج جوجه كبر كدوني كجوجه ما أنت قيامة مركز لا تو نار أنتي اللي جريهم بيكرون إلا الصيوم بيها سكري كودا وحالي مركز لا كانوا أنتينا عبين با وجه هرتي سمركز مرينا عيان أفق أصي ودان با أوميجا كبحاية درادي وحي مقارعة
ama hilib oo wajiga saaran oo dhan ayaa soo daadanaya kuleelka daraadii kaas ay cabayaan marka walladina kafaru kuwa gaaloobay lahum waxa ilayhi sharabun abitan min hamim oo biyo kulul wa adabun alim ya adab hanujiya bima kanu bisabab ma kanu aanshaha ay ahaadeen daraadeen yakfuruna kuwa kufriya ay ahaayeen oo ay soo gaaloobeen daraadeen ya adabkaasi loo geliyay biyahaas kululna loo siiyay huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diyaan huwa ilaahi alladhi ayu ahaaday ja'ala ash-shamsa quraxda ka dhigay diyaan iftiin ka dhigay wal qamara dayaxana nuur ka dhigay macnaha quraxda iyo dayaxa waxa iftiinkiisu uu weyn yahay yani quraxda oo maalinkii yani say u cadaynayso waa maalin cad habeenkii inkastoo dayax markuu jiro iftiin uu jiro laakiin hadana sida quraxda ay u iftiimayso kala iftiimayso waa nuur la iftiinsanay asagana habeenkiina yani dayaxa ayaa iftiimiya maalintiina quraxda marka huwa ilaahi alladhi ayu ahaaday ja'ala ash-shamsa quraxda ka dhigay diyaan iftiin wal qamara dayaxana nuur ka dhigay wa qaddarahu qadaray dayaxa u qadaray manazila meelo uu dago yani bishu markay dhalato habeenka koowaad way yar tahay way soo weyneynaysaa ilaa 15 ay ka gaarto way yani kolba way sii weyneynaysaa 15 dambe ee bishan hadana way sii yaraanaysaa ilaa ay ka dhamaato ay ka baabacdo hadana bishii kale ay hadana iyadoo yar ayay soo baxaysaa manaasishaasi iyo wareegaasi dayaxu uu saa ku socdo waxa loogu talagalay xigmada laga leeyahay waxay tahay waqadarahu ilaahi ba qadaray manazil meelo wadooyin buruuj la yiraahdo ayuu dayaxa u qadaray kolba habeen inuu meel fariisto saa waxa loo yeelay oo bishii ay u dhamaanaysaa oo hadana bilka ay u soo bilaabanaysaa li ta'lamu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda iyo wal xisaabta inaad ku samaysataan ayaa saa loo yeelay oo quraxdana maalintii ayaa lagu xisaabaa maalintu markay way dhamaatay maalin kala dhamaatay maalin kala quraxda maalintii baa lagu xisaabaa dayaxana habeenkii baa lagu xisaabaa waxa saa loo yeelay oo isugu bedelayo yuqallibullahu layla wan nahara waa si aad u ogaataan cadada siniin maxay yeelay maalmihii oo la isku dardaray yaa waxay noqonayaan bilihii oo la isku dardaray ayaa waxay noqonayaan sanad isaas marka sanada dhamaaday 2 sano 3 sano 4 sano marka dayaxaasi iyo quraxdaasi isbedelkooda waxa ilaahay idinku sameeyay si aad ugu ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda iyo xisaabta ma khalaqa Allahu ilaahi ma uusan abuurin dalika arrinkaasi illa bil haqq ayuu abuuray yani arrimaha la soo sheegay si cabas iska ciyaar ilaahi uuna sameeynin ma khalaqa Allahu ilaahi muuna abuurin dalika arrinkaasi illa bil haqq ma ogi yufassilu al ayati aayadaha ayuu cadeynaya ilaahi liqawmin qolo ayuu cadeynaya yaclamuna wax garanayaan inna fi ikhtilaafi al-layli habeenka isbedelkiisa iyo nahaari maalinta iyo wama khalaqa Allahu ilaahi wixii uu abuuray fi samaawaati uu ku abuuray wal ardi dhulka uu ku abuuray la aayatin aayada ayaa ku sugan liqawmin qolo yattaquna ilaahi ka cabsanayaan aayada ayaa uga sugan ruuxi raba ilaahi qudradiisa inuu ogaado oo cabsi ilaahi ay ku jirto ma raadinay mucjizo kale iyo waxa la isoo dejiyay ma dhahaaye habeenkii iyo maalinta isbedelkooda yuuba wuxuu ka garanayaa maamulka meesha ka socdaay ilaahi waahid inuu maamulaayo hadii uusan ilaahi waahid maamulaynin sidaan isuuma nidaamsanaadeen isku dhacaya imaan laha ayadoo habeen la sugaayay ay maalintu iska sii socon lahayd marka caalamkaani sidaan hadda u nidaamsay umuna nidaamsanaadeen marka inna fi ikhtilaafi layli habeenka isbedelkiisa iyo nahaari maalinta wama khalaqa Allahu ilaahi wuxuu ku abuuray fi samaawaati wal ardi la aayatin aayada ayaa ugu sugan liqawmin qolo yattaquna ilaahi ka cabsanayaan inna alladhina kuwi la yarjuna an rajayninin liqaa'ana la kulankana kuwa aan rajaynin oo aakhira aan rumaysnayn wa rabbu kurraali noqday bil hayati dunya noloshan adduunyo raali ku noqday oo ay la fiicnaatay wadma annu hasileen biha noloshan adduunyo ku hasileen oo umalaysid inay deegaan yihiin oo guuraynin ba adduunyo weligood ay joogayaan walladina kuwi hum ayagu an aayatina aayaadkana oo quraanka غافلون إلوسن القرآن كحو كهالله بأن نجلق أسينين أولئك كواسي مأواه ماشي هنا النار والنار بما كانوا يكسبون وحي سواكس بدن سبتيسة أي نار تاسكو قلايان لنا عكلا إن الذين كوي آمنوا إله الرميين وعملوا الصالحات عملوا ناكسن سميين يهديهم وهنون ربهم ربقود بإيمانهم إيمانكو الدرادي أي إلهي كو هنون إلهي وحو هنون يا روح أسوى هنونسا والذين اهتدوا زادهم هدى إن الذين كوي آمنوا رميان وعملوا الصالحات عملوا ناكسن يهديهم ربهم ربقود أي كو هنون بإيمانهم إيمانكو السببتيسة يو خير يا جنة يا ماشي فعلا يو وهنونايا تجري وحاصعون من تحتهم هوستوضا الأنهار وبيارو في جنات النعيم جنة النعمة البضنيت
ayaa ilaahay uu ku hanuuninaya iimaankooda sababtiisa ayaa lagu hagaajinaya asbaabtii jannada ay ku tagi lahayn ayuu ilaahay waafajinaya dacwaahum baryadooda fiiha jannada dhexdeeda marka ay ku jiraan baryadoodu waxay ahaatay ducadoodu waxay ahaatay subhanaka allahumma saas ayay dhahayaan wax alla waxay u baahdaan kalimadan bay ku dhawaaqayaan subhanaka allahumma subhanaka adiga ayaa nazahan allahumma ilaahu wa tahiyyatuhum salaamtooduna fiiha jannada dhexdeeda salaamun wa nabadgelyo salaantan islaamka هذا اسكو سلامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن لا وتحية المسلمين في الجنة جنة المسلمين اسكو سلام دون وأيضا هذا الرامك إلا صيبس أجر أيانا لقيه الآيان آخر ما كلا تجد جنة المؤمنين تأجلانا سلام توضو والسلام عليكم داس وتحيتهم فيها وحياة سلام وآخر دعواهم دعاء ضمات كذا وحياة مركب برواقوبان أو أي وحول البؤ في عن هلان ما تشتهي الأنفس وتذل العنوان وأي دعاء سنايان دعاء بريضة وقدام بيس حكوسه ختمايان أن الحمد لله إلهي بمهات إسكاله رب العالمين عالمين رب قضاءها أيام مهات إسكاله الله جنة النسيه ماشان أن لقيت إيمانين أن لقيت جهنين أن لقيت جورين دجال ونكدعين علاد أين كسرين أن بالجليدة إلهي إن مكانين الله أيام مهات إسكاله أي بريضة وقصه ختمايان وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلهي إنه قدره كواس مؤمنين تأه دعاء كسر جبجبي أيوة الجنة كل حجرة أن الحمد لله رب العالمين إلهي يا مهد إسكال العالمين رب قضاها درسي ونمات انتهى شكوك جاي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.